أنا ورور بي وهيسا sababtoo ah aniga dartii bay guriga uga tagtay adiga see kula tahay sida wax aragtaa ma fariisana horta hayna fidis hay Samir waxaan filayaa in la gaadho waqtiga sheegay wixii muhiimka ah halkan igu balansan okay naja horta Soomaalidu waxa ku mahmaada kurwayl waa wada indho adigu waa iska fahmi karaysaa waxaan kuugu yeeray iyo waxaan damacsanahay haye san hore kuugu sheegay naja hantida iyo lacagta iyo xaafadda dhan waa bahay ka tagay san hore kuugu sheegay aniga ayaa ka masuula wad garanad kartaa day wiil ragana ana xaafadda ku jira xilligan guursan lahaana kullee way joognaa waan gartay kullee markuu ninka ragii guur damco uu sahan tagaayo dooqiisii wax raadsada Soomaha waaro laakiin aniga amir ilaahay dooqaygii wixii aan rabay ilaahay bay iga ma fogeyno gurigayga dhexdiisaan ka helay oo maalinkii koobaad aan ku arkay qalbigayga ayaa degtay naja waan gartay ilaa maalinka meel aan kaaga soo wareegay iyo si aan dareenkayga kuugu sheegto ayun baan raadinayay koodhay waa koow ninka ragii maalin buu isqarxiyaa aniguna waniga dareenkayga iyo wixii qalbigayga ku jiray kala hadlay adigu man jawaabtaada sugaya Samir aad baad u maasantay hadalladii soo hadlaysana way cajabiyeen dad imka isbaranayna manihi kulmo horena way yeelan shakhsiyadaadii waxa tahay aan ku bartay imtixaankii nin raga la marin lahaana aan ku mariyay in badan aan kugu adkeeyay imtixaan adag baad waliba iga qaaday iyo sheekada way imtixaankii nin raga walba la marin lahaa ay dhigayso haye horta Samir hadal iyo dhamaan jawaabteeda ka wadameysta hadan ku siiyo aan ka dhex galay inaabti waliba arrinka waqti aad kaga soo fikirto macalin ku siiyo maya waqti uma baahni waqtigu filan waan soo qaatay haye ii sheeg jawaabtaada bal maxaad iga filaysaa ka waran adigu kullee khayr ma wax kale waan aqbalay xiriirkaaga Samir inaabti waad mahadsan tahay ma garanayo maanta waxaan dareenkayga ku cabiro ama kula mid baanay hadda wixii ka dambeeyay laba qof oo xiriir la banayso ma aha dabcan caawa si aanan weligii u seexan ayaan u seexanayaa inaabti iyo walaaliyo wixii la midana maanta ayaad iga soo gabagabaysay maxaa lagu bedelayaa markaa ereye aad markii hore ka xanaaqi jirtay oonad maanta ka xanaaqi doonin waa diyaar horta Axmed wala caasha hadalkeedu waxaan moodaynaa cara ka keentay laakiin markii dambe aanu qudaydu shaki i galayba muxuu yahay shaki ku galay waxay caasha sheegaysaa inuu dhab yahay ayaan ka shakiyay waayo markaa maxaa shaki kugu dhigay deynta hadana maqa guriga lagama dareemayo cid ka fikirata cid ka warwaraysaaba ma jirto laakiin maalmihii hore aad baa loo raadiyay waana laga warwarsanaa ma laga yaabaa imika markii la ogaaday inay nabad qabto magaaladana joogto inuu dadka wararka ka yaraaday waa run nabad qabkeedu aad buu muhiim yahay laakiin sababta loo raadinayo waxa weeye in guriga dib loogu soo celiyo shaydaanka iska naar laban waxa laga yaabaa xanuunka ayeeyay maqnaashaha hooyeen lagaga mashquulay arrinka caasha hooyo garta mashquulkeeda laakiin Samir muxuu ku mashquulsan yahay oo inantooda soo raadin waayo wallahi ma garanayo laakiin arrinka adigu ka shakisan tahay ma aha mid aniga iiga muuqda suurtagal ma aha in waxaasi wax dhici kara noqdaan amba saasan dareemay laakiin shakiga waxa igu dhalisay wax u socdaan xalay markaad Samir kala hadashay maxaan ku yiri si bilaadanayno ila hadlayo wuxuu igu reeyay ma yar ma ahan baa soo noqotaan baa iska deysan misaga soo hadlay ha خير بنقنص إن شاء الله امتحان كودا في السماء هرتا ها ودافع لبع شكهر بودا ما ذي يدو ميقلي إلهي استخير كلها كدوا ويسكاك إن شاء الله آمين مش أحمد نصر صمينا يا اسكسي فضل Samir يا حبيبي horta markii hore banaankan kala joognay laakiin imka la maanay noqonay wax walba adiga sharaftaas sumcadaada wuxuu dhibayna anigana sida xoo dhimayaan waa run waxay wax muhiim ah rabaa inaan kuu sheego hadduu dhacana sharaftaada iyo sumcadaada wuxuu dhimayaan ii sheeg bal horta walaahi meelan kaaga bilaabo garan maayo waayo waxaanad filanay
وعادي نجح wax walba adduunkan waa laga fishaayay sheeg okay shacaan wuxuu xiriir ka dhaxeeyo isjeceliina ka waardiyaha gurigiina ka shaqeeya yaa maxaad diimaka waxaan ku shacaan inay ka waardiyaha xiriir ba ka dhaxeeyo waxaa si macquul ma ahay malaha wada la kaftamay najxay wallahi way ga dhab kaftami maayo jacaylku wali shacaan ku horyaana way dirtatay miyaad ugu sheegtay markaa adigu miyaan waalanay iyada man ka waanay kula ninkan kuma qalmis ka daa maxay ku tiri markaa waxba way ga maqli weyd aniga teedu bay ku socotay adigu haddaad u soo sheegi weyday si aad ku ogaatay hadda inay xiriirkii u sheegatay jacayl ka dhaxeeyo dayada ay sheegtay waxba iga qartay aniga adduunyada nin noolow maxaa aragti ku laab ma inankii yaraa isagoo silcayaan meelaha ka soo kaxeeyey ayaa aniga iga dhex bilaabay dadka qaar baa sida iyadoo kale oo marka soo gacan qabatay dubadii ku qaniinayo samir hee maxaad ka yeelaysaa arrinka anaa aqaana waxaan samaynayo waanad ku mahadsantahay arrinkaas sida quruxda badnada igula soo socodsiisay laakiin xayu shacni ha u sheegin anigu waan kuu sheegay shacni been aad ii sheegayso mababa noolaanaysa maanta kadib haddaan qoorti ka geyn waayo anaa nin bahayn shaydaanka iska naan xayu khayr bay noqonaysaa insha allah iska dhaaf adugu aniga ii taalla waxaan samaynayo igana raali noqoda joogi farxeed baan kaa jirayna mar kale kuu sheegay hayd xayu haye waad ku mahadsantahay najax inaad xilligan ii sheegto